بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن دمان أغيرت السوشيال ميديا إيجالا سعوتا دمانتي وحيد الله يهي وقتك أيدي وعناضو وحان إذن الله يهي دمانتي بإلهي إذن حفظيو إلهي إذن بركة مرول بوا جوكتان سودا وهذا وبرامج كالو قارة وحساسية أيان برامج كان عنك قال دونا هدو الله أود له وسامحه لكن مركو رو حرب إن التعسية أو إلهي أن نقبريو إن جندي فردوس وكورابيو أنتي كل ما تقرأي ما أنت كدعي أجارك إن تياترك وحنا يبقى عنك قبرية كوا لاوعة إنه إلهي عاف ما دوار وسيو دق إلهي وعافيو لما أنتي وحد الله يسود وهذا مركو على قبصتي لما أنتي يسود وهذا الله حرب إن كهالله قلها وزير ده ما أنت لصوم مجعابي وصوم مجعابي مدحوينه محمد عبد الله فرماجو رزار حسن قيرئيو أفيانك حكومتنا أقريان أنت سينك الله يدو الله ود له وسامحه أو رنتي أنيق حكومتنا مجا قفل باقرت حكومتنا لصوم مجعابي وإديش رحيا وعن تاريخ ذا عن دين أي حكومتنا أي سما يسفلنا سيشر جريه وأنا إديش رحيا وجد كحكومتنا بليس سيشر جريه ذلك وأنا رنت الله شيء وحال رقفك إن حق الله شيء حكومتنا مجا إذا وحال يرادا ظلمي جديد ظلمي بران على سلاد أي نعلي هنا عندما أنتم إسلام عم بشير شرط سأوجدا عم بشير آدم كوسلام يا فضلا سيشر جريه برهان على سيشر جريه ما تقاس آدم كوسلام عندما أنتم إسلام يا إن وحيد الله هاي أفقد بوجنا والسلام يا صاحبك غالية حكومتنا مجا إذا وحال يرادا ظلمي جديد حدبا وظلم عصب ظلمي هدي هورا لو دي جري دم جديد يهبلو لوgu mashquul jiray xas shaqi teamkiisa maxaa diiday in lagu mashquulo farmaajo teamkiisa wax diiday ma jirto in lagu mashquula waa runta loo sheegaa aniga waxa idin sheegay oo maxamed aadan ku salaamaya saaxiibkay Mareykanka waxa idin sheegay farmaajo madaxweynaha Soomaaliya in uu fududeeyay in fudeed tarab uu ku jiro waxa idin sheegay in madaxweynaha uu qabyaaladiista yahay madaxweynaha in qabiilada qaarkood uusan jecleen sida uu ku qoray buugii uu jaamacadda ku diyaariyay oo aan idin aqriyay xukuumadan maxay ku tahay dulmi jadiid waa idin sheegayaan waxba yaan la sabin waxba yaa been la sheegin fiiriye golo wasiir marka la soo dhiso waxa ugu muhiimsan fiiriye dad waxa jira dadka qalda qabyaalada ay ku jirto oo meel soo fadhiisanay maanta oo kulahay xukuumadan difaacayna golaha dawladdan difaacayna war maxaa difaaca adiga golaha yaa ku siiyay ma daaradnimo u difaacaysa ma qabiilnimo u difaacaysa maxaad adiga aad u naqdiraysaa qofka hadlo maxaad u naqdiraysaa dawladda ma adaa iskale ma hooyada iskale ma aabahaaga iskale dawladda ummadda ka dhaxaysa war golo wasiir aad maqashaan afar wasiir ugu muhiimsan afar wasiir ayaa ugu muhiimsan waa wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka maaliyadda hadda waa afar wasiir afarta wasiir oo la yiraahdo waxa soo raacay kadib garsoorkii cadaaladii ya soo raacaan haddaba wasiirka arrimaha dibadda waxaa la siiyey hawiye oo Yusuf Garaad hadda Yusuf Garaad oo hore aan kaga hadlo aan idin sheegay Yusuf Garaad wuxuu u haystaa fiidiyoga 100 iyo dhowr kun oo qof wada fiirsatay dib u tixraac يوسف جراد وهايستا محمد سياد بري ولي ودنك إنه هايستو فرماجة مركلة دورتي لبضل الوجود وكلا تاجي بقول ودا مدحوينية سود دكتي إيربورك وكسب بحجران جرادو مدحوينها كلا إنه سود دكتي هذا يوسف جراد كيساس لها يؤد وجيدين أساس صفيرك خرمد مدو صومالي وفريا أو حلقات لجي وزيرك أرماد دي بدأ وحلقات قاضي إسكاشيكي عالمية يقرشنتي وحال نين وزنجلي أو صفيرك عاكين nin wasangeli daarooda oo safiirka ahaa Kenya la siiyay hadda waa wasaaradda arrimaha dibadda waxay ay ku dhaqdhaqaaqi lahayd iyo hoosha ay ku wadi lahayd nin Jamaal la yiraahdo wasangeli la siiyay ka soo tag wasiirka gaashaandhigga inuu raxaweyna oo beedhaw joogo aan ciidan waxba ka ogeyn oo generaal iyo sargaal aan waxba ka ogeyn oo caamil aan laga dhigo wasiirka gaashaandhigga hadda dulmiga intaas la eg fiiriya dulmiga intaas la eg سفع عليه مغلق بدل سيشر جري ظلمي ما يقد جنرال وعيدنا جوكت ما إن فرماجو وصعد عرسي
farmaajo inuu socdo lama rabo biri maalin maalmaha ka mid ah wallahi waa idin dhaarana waa ogaan doontaan farmaajo dulmigu damacsan yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka firiya waa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta yaa la siiyay mutaqaaniin waxaa la siiyey nin la yiraahdo juxa haddaba juxa yuu yahay juxa waa majeerteen ciise maxamuud ah si fiican ii maqla majeerteen ciise maxamuud ah waa wasaaradda ugu muhiimsan wasaaradaha majeerteen wasaaraddaas ay qaataan waxaa ugu dambeysay dowladdii kacaankii markii la dilay allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaake oo maxamed siyaad meesha uu qabsaday wax majeerteen ay waxaan aqeen waxay ahayd wasaaraddii arrimaha gudaha laga qaaday farmaajo maanta wasaaraddii arrimaha gudaha wuxuu siiyey nin lidaa juxa hadduu cali xaaji nin fiican uu siila waxbay aaleed haddaba juxa muxuu yahay juxa majeerteen waxa uma galo cid kalena waxa uma galo soomaalina waxa uma galo waa mid iska marqaano iska socda juxa ninka la yiraahdo loo magacaabay maanta wasiirka arrimaha gudaha waa nin noocaas ah arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta yaa lagu qancinaa ma taqaaniin cabdulla gees laguma qancinaayo cabdiraxmaan faroole ayaa lagu qancinayaa magacaabista juxa cabdiraxmaan faroole maadaama farmaajo u gaamin gareeyey cabdiraxmaan faroole waa majeertaan ciise maxamuud ah juxana waa majeertaan ciise maxamuud ah waxaa lagu qancinayaa faroole ee ma aha qancin la qancinayo cabdulla gaas ujeedka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta ninkan lagu dhigo ma taqaanin wasaaradii dastuurka si fiican ay dhegeysta wasaaradii dastuurka waxaa la siiyey nin la yiraahdo cabdiraxmaan xoos jibriil hadda oo aad ogeedeen wiilkiisa in gabar masaakiin ah uu ku kufsaday goldogob aad ogeedeen waa cabdiraxmaan xoos jibriil oo aad ogeedeen in wiilkiisa uu ku kufsaday gabar goldogob oo markii dastuurka la sameynayay qabi qoraaleedka dastuurka la sameynayay cabdiraxmaan xoos jibriil waa ninka yiri hoteelada ergadi la dejinayay hoteelka aan lacag isiinaynin oo ergada lacagtu ka helo aan bar isiinaynin erga lama dejinayo hadda waa nin heerkaas gaaray waa nin aan 24 saac iska saaran xidigaha wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil loo magacaabay yuu yahay waa wasangeli daarood fiiriya marka ujeedka muxuu yahay oo loo siiyey puntland ay u qaadatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasiirka dastuurka hadda waa laba wasaaradooda waaweyn ujeedka wuxuu yahay haddee iswaalaan beelaha muqdisho dega haddee iswaalaan oo qarracda ay badato oo qaraxyada iyo dhibaatada ay sii socoto in muqdisho laga raro caasimadda oo wasiirka arrimaha gudaha federaalka uu soo jeediyo inaan lagu shaqayn karin muqdisho inaan lagu shaqayn karin yaa soo jeedinayo waxaa soo jeedinayo sii shargareeyo waxaa soo jeedinayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wasiirka dastuurka wuu meel marinayaa baarlamaanka la geenaya caasimadda waxaa laga rarayaa muqdisho ma fahmaysaan haddii reer muqdisho ay ku tashteen in ganacsatadooda iyo xildhibaanadooda ay furaan dekada ceelmacaan hadda farmaajo asagana wuxuu dheelayaa ciyaar kaloo ah in caasimadiiba laga raro muqdisho wasiirka arrimaha warsee ku dhacday fiiri dawladda la sheegayo Soomaaliya waxa la rabaa moogta qofka waxa la rabaa maxamed deeq aadan ku salaamaya hadda babaashe wasiirka arrimaha dibadda la siiyay babaashe la siiyay hadda waxa lagu siiyay wax nafle ma aha waa wasiirka arrimaha dibadda oo kali ah iskaashiga caalamiga laga reebay qorsheynta iskaashiga caalamiga maxamed deeq oo la sraaciyay hadda isla babaashe wasiirka arrimaha dibadda la siiyo hadda waa lagu dulminayaa hadda waa lagu dulminaya intaas aad arkaysteen dhibaato dhacayso maxamed siyaad barre dhibaato uu geysanayay cabdiqaasim salaad xasan wasiir ahaa Soomaalidu runta ma jeclo Yusuf Garaad iyo Cabdiqaasim laba nin oo la siisay Cabdiqaasim waa nin boqor xafidullah ilaahu xifdi Cabdiqaasim waa nin boqor hadda Yusuf Garaad laakiin waa nin caamil ah waaye ujeedka marka wuxuu yahay waa in caasimadii laga raraa muqdisho hadafka ugu weyn waa hadafkaas hadafka labaad aan idin sheegaya galmudug waa gobol iyo bar is haysteen puntland ayay galmudug is haysteen hadda farmaajo dulmigu wada idin sheegaya dulmiga farmaajo uu wado xasan xayaakalla ku salaamaya dhamaantiin commentiidina waa aqrinayaan adeerkay afka boojo aadan ku salaamaya la sii shargareeyo si fiican ii dhegeysta galmudug fiiriyaha galmudug iyo puntland waxaa ka dhaxeeya dagaal wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa la siiyay iyo wasiirka arrimaha gudaha federaal maxaa waaye waa maamul goboleedyada dib u heshiisiinti waa loo raaciyay hadda waa nin ciise maxamuud ah
ومجرتنا ورير بنتلان وزير كدستور كان وانين رير بنتلان عبد الرحمن حوش قل مدق مركب ما دام مرن وكتاجنا هذا مدحوينين ويسعزلي أو قبل يبر أي تاي وزارة أرمها جودها يفضلك إيدوهشتين تبحي كينيسا إن مصلحة الله أركو إن قل مدق لبابيو قف كم أنت وحي صوص عضو أنو جرانين وأن صعدال سيسا مينين بري وحي صوص عضو ما أرك كرو رون بعيد شيء يعني قل مدق أو هوية الدجانو ماجورة تيجا أيهين هبر جدير مرصادو أبقى الشيقال دير حوجها مريحانة حدا وحال اللي هي بنتلان دبوشيسين تي الله أركي أرميه فدرالك الله أركي قل مدق الله أركي ساس أول إذا وقبل إبر دستور كي مقبو قل مدق ماشي على قصاره حدا وجدت كفرماجو وجدت كيس أيدي شيء يا فرماجو وجدت كيس هذا كنت شري استوى إسرائيل ده هاي حدا إسرائيل هيد قبل بوقوايو إسلام بوقوا نوع عصو هبلو بوقوا إذنك إذن ترى إذنك أي إذن ترى حوال وعد أركتين ترى أنت اللي إجيين تيض أنت اللي إجيين وزيرك واحد برشلو سي أوكي أبقى المحل سليه كوقن إيه محل سي فيها وزارة أمنية هذا وزارة أمنية والله كميد أو هوست ماذا وزارة أرمها جودها فدرالك أي هوست ماذا وزارة أمنية أمنية وحل سليه عصب على الوقوق أيوه نكان دعاء اللي لازم واحد بدل أوجو حريف أو واحد فانسل معه الاتحاد بوسكها ميليس عصب على الوقوق أنا هذا وزارة أمنية أبقى اللي محيطها وفرع كميد أو وزارة أرمها وحل رأينا فانتين على الروافيرية وحل رأينا حلالك أكل فانتان وفرع كميد وزارة أرمها جودها فدرالك وزارة أمنية أوكي وزارة أمنية مركز أساسها ورفافين تمحيطها أول سي ورفافين تلسي معيتاي وزارة ورفافين تلسي واسبيكر كي وحال ربا نكان دعاء اللي يرادو نكان مجرتين جحا أمرك وصبحيو إن هوبك لديو إنو فليو وهذا أبقى لي هبر قدري واحد ماشي الدقن إيو واحد مقدسو كل شيء هوبك لغا ديو يا فليناي نكان مجرتين هذا مو فلين كرو دولة دي مقدسو بيسا كيشا قيسا جحا مو فلين كرو وحا فليناي أمركاس دعالي أي أمرك فليناي يريسون محو سمينا هذا هو هلا عبد الرحمن يريسو أبقى لهنا حدا وهلا حوليه هاي هورقل بالسمية ساس بالسمية دولة دوي يقول ستي حدا أنت على جبهة حدا ضد على الله هي يريسو صار الله مجعاب كان أمني قال شيء يعني الله مجعاب أوكليه إن هو بكنجس وسميه حدا أبقى له أركتين مدلود أبقى لك ليه مدلود على أركتين ترى سيلوسي وزارة أرمها جودها وزارة أمنية وزارة أرمها جودها مع أمنية أونلاين كترسن أرمها جودها إيه وزارة كلا اللي يراد إيه شيء الوزارة اللي يراهدوا ورفافينتا وحا أقولون وزير الدولة مدحتويدا أقولون عبد القادر مع النور محلو سي متقانين عبد الله مع النور والله شيء أو هو هيستا عيدا مدى حوجة ساد كودي عيدا مدى يقولن وانين كانوا عيدا مدى حوجة أبابولا عبد القادر مع النور عبد الله مع النور اسمه جعله عبد القادر مع النور وحال ما شاء الله كان إن عبد الله مع النور لعنه عبد الله مع النور إن لعنه وعبد الله مع النور ما شاء الله قصاره هذا هو انت الله كيني عبد القادر مع النور فاهم سيف يعني فاهم عبد القادر مع النور انت الله كيني وانتاس وجيت كفرماجو وقوين ولي هينا هذا هو عارسي واحد كلام معه وقبيالة ديست مدحوينينا واحد كجوحاي واد اركيسان وقبيالة والقبيل والبوحو ككيني قفك اقول ليتا وانت جحام مقعاويس مع عبد الرحمن فرول وزيرك ارماء جودها ومقعاويس فدرالك انت جحمك عابيسد ما فرول امك عاوز بوزيرك ارماها جودها فدرالك واديك جوحك كيني لبدن المجاتين عيسى محمود اسلييين ما جوحات سيسد انت يوسف جراد ما عابيسد ما قف كلا كينتد عبد الرحمن عبد الشكور waxaa istirimiya ay sheeg waxa Abdi Raxmaan Shukura haduu yimaado iyo haduu hebel yimaado iyo hadda waxa waaye meesha hadda Yusuf Garaad caamil ah oo markii hore Facebook-yada ay ka soo amaanay hadda waa taas qabiilo kale waaweyn waxa la siiyay wax aan u qalmin oo liita هذا النعس كعبد الرحمن ديري أنا هذا وحكي لما لا يدوس عزيلين عبد الرحمن ديري شيقالو لأنه وحوصو قاضي وزير الدولة جديدك ميا وحساسة إيمانك إلهي كاقاد هدوس إسعزيلين هذا دوس إسعزيلين وإيمان بيلي هذا وحا إسعزيلي وزير الدولة وحبر رشادة يقول شيء أرطبلة وحلي وزير الدولة وحبر رشادة منع أنفعه وعبد الرحمن ديري الدمير المديسة وحاليا بنهاي هيرك وقارسيسين ما وحي كتاهي عادو ما وحي كتاهي لقن
shiiqaalo dhan wuxuu usoo qaaday wasiiru dowlaha gaadiidka wala basaas hadda ninka gandarsha shiiqaal gandarsha cabdirashiid aa ka fiican wasiir noqday cabdirashiid oo shiiqaal gandarsha aa wasiir noqday oo beeshanaad ku helay warniyow dadka qaarkood ducfi hadda ducfi iimaankii ilaahay ka qaaday irsaaqadii ilaahay ka qaaday eber sida kuwa qaar oo aan u bixiye faqash oo dowladan dulmi jadiid u arkay inay tahay hadda dowlad saan usii kala war ninkan waa qabyaaladiista maxaa ku taageeraya waa qabyaaladiiste haddaad mariixaan tahay taageer waa caadi waa in adeerkaa waa taageeri kartaa nin kuguma haysto laakiin haddaad ahayn maxaa ku taageeray wuu ku dulmiyey xukuumad golo wasiiro wuxuu soo dhisay dulmi ah wuxuu rabaa in qabiiladii uu baabi'iyo wuxuu rabaa in caasimadda muqdisho uu ka raro wuxuu rabaa galmudug inuu baabi'iyo maxaa lagu taageeraa war cabdiraxmaan yiriisow aniga waa saaxiibka inaan ku fogaado marow laakiin waxaan baan idiin sheegayaa cabdiraxmaan yiriisow oo wasiirka warfaafinta laga dhigay xasan sheekh maxamuud wuxuu ka dhigay afayeenka xukuumadda nasiima cadde waa ku salaamayaa jamaal jeesto waa ku salaamaya adigana jamaal jeesto boqorada fiiriyi waxay dhegeysta ninkan la yiraahdo yiriisow marin waa ku salaamay marin cali muudey waa halgamaa sare lagu darsado marin waa halgamaa fiiriyi waxay baa idiin sheegaa yiriisow xasan sheekh muxuu ka dhigay mataqaanin afayeenka xukuumadda wuu iska casilay بس وجو شغله كحصلات يريسو اسك عزله مركو اسك عزله كدب يريسو حفيزك ورفافنت مدحتويدو كشقي جير waxba kama sakayeen xafiiska madaxtooyada warfaafinta ninkaasa maanta waxa la leeyahay wuxuu matalaya abgaal iyo mudulood yusuf garaad aragtay in BBC da uu soo maamuli waayay oo wakiilkii qaramada midoobay u fadhiyay Soomaaliya laga dhigay oo ka doortay in hotel jazeera uu yimaado 24 ka sax Facebook uu ku amaano maxamed cabdullaahi farmaajo ka doortay hadda maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka doortay 24 ka sax inuu ku amaano Facebook-yada hadda ninkaasna waxa laga dhigay wasiirka habargidir ducaale nin la yiraahdo iska al-ittixaad ahayo ururada ittixaadka ka tirsanaan waxa la yiri wasiirka amniga tahay war wasiir amniga maxaa gashaa madadkaaga lagu adeegsanayaa war wasiir warfaafinow madadkaaga markii farmaajo uu laayaa lagu leeyahay hadal of course isaaq oo aad aragteen tiradooda iyo ninkan farmaajo buug wuxuu ku aaya buugiisa hawiye isaaq iyo majartan inta buu dulmiyay sida ku cad wasiirada maanta la soo dhisay intaba uu ku dulmiyay isaaq oo aad aragteen tiradooda isaaq oo aad aragteen alxaq Allahu akbar bal aadana soo dhacay Allahu akbar idageysta waxa idin sheegaya isaaq wuu dulmiyay muxuu ku dulmiyay isaaq wuxuu ku dulmiyay isaaq oo waqooyiga nimanka majority-ga ah oo waqooyiga awood badan ku leh wuxuu siiyay ra'iisul ku-xigeen falsa ah ra'iisul ku-xigeen aan waxba la soconin wuxuu ka dhigay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka Hiblaayi afartii wasaaradooda ugu waaweyneed arrimihii dibadda arrimihii gudaha maaliyadii igashan dhigi maaliyadii wuxuu siiyay Samron uu siiyay aniga Samron aan jeclahay waad aan u jeclahay laakiin dulmiga farmaajo idin sheegaya ma jeerteen reerka la yiraahdo naftirkooda uu dulmiyay inaan waxba ka galin oo maamulka Puntland aan ku xirnay iska socdo iska allow sahal ah hadda allow sahal ma taqaan iska marqaamiista ah juxa la yiraahdo juxa hadda juxa maxaa u taqaanin Soomaaliye fiir juxa maxaa u taqaanin juxa hadaad maqashaan juxa maxaa waa ii sheegay iskuulo waa soo dhigateen juxa maxaa la magaca juxo qofka magaciisa la fiiriyaa magaciisa juxa magaca juxa yaa yaqaan si shargareey mudane Cabdullaahi waa ku salaamay dhamaantii waa aqrinaya commentiin juxa qof yaqaan u baahanay juxa waxa la yiraahdaa hadda juxa ma taqaanin juxa waxa la yiraahdaa qofka beenta badan ayaa juxa la yiraahdaa hadda wasiirka arrimaha gudaha magaciisu waa juxa waa nin been badan juxa waa nin been badan hadda wasiirka arrimaha gudaha ninka uu ka dhigay majeerteen ee federaalka iyo dibooshisiinta hadda magaciisa waa juxa oo farmaajo uu keenay juxana Soomaali ahaan waa beenlow waa nin been badan hadda nin been badan war see ku dhacday dawladda Soomaalida runta marabaan Soomaalida qof baa wuxuu yiri warkan daacaliso ee ku soo dhiibay commentiga waa aqrinay commentiga qofku waa xor ku hadli karaa hada daacaliso ana kaga horeeyay mucaaradada farmaajo run baa idin sheegaya run marabtaan farmaajo aniga inuu qabyaaladiista yahay wallahi intaan la dooranna arkay inuu nacban yahay qabiilada qaarkood intaan la dooranna arkay habeen inaan soo fariisnaa daahir waxaan dhahay farmaajo iyo xasan sheekh da isliimaada ani xasan sheekh taageersanahay
حسن مركز عير قبيلات ما كنت أجريسه هذا قبيلة كنت أجري وفرماج ساق قبيلة ديستا فرماج وقبيلة ديستا وواحد كم مغضب ما أنت واحد كم مغضب ورا عبد الحق عبد شكر محو وزيرك وجديد ورا عبد الحكيم بدار محو وجديد هذا عير سيناي محو يوسف جراد أوكاني محو أوكاني يوسف جراد أصوات كعر رأي عير كله عقل قله سعد كعقل قله سليمان كعقل قله سرور كعقل قله دبل أصوات كعر رأي يوسف جراد مقعد هبين كان يوسف جراد كحل وربرفيل كي يدب وراح فيري يوسف جراد وحن كحل أفر أسبوع كور 6 أسبوع كور يوسف جراد قفك والله قرأ اللي بنتيسه يوسف جراد إن قول وذا يهي 4 أسبوع كور كحل ما أنا أوجا إن وزير لقى جاي لكن وحن أركي إنه يهي نن علاقاته وأفر إلى تنكسر فيسبوك يبنوا على فرماجه مدحوينه wadamada Afrika oo waxa jirta dawlad xukuumadan inay tahay dulmi waxa la dulmi jadid waa dulmiga cusub fadlan waxa in ka codsanaya magacan hirgeliya dulmi jadid waa dulmi cusub waa xukuumadan dulmi jadid waxa lagu dulminayaa hawiye qaybiisa kala duwan war ninka maanta wasiir dawlaha gaadiidka la siiyay Cabdiraxmaan Dheere la yiraahdo iimaanka Ilaahay ka qaaday haduusan iska casilin wala la diraya iimaanka Ilaahay ka qaad حوال ninka wasiirka waxbarashada u soo qaaday balka warama Yusuf Garaad horta ana ugu isxasileen damiir malaha yirisoona damiir malaha ducaalaana waa mid iimaanka la hoteeladiisu waa inuu ku ilaaliso wasaaradda amniga in hal qof oo abgaal u danaynayo ama habar gidir u danaynayo ama sheeqaal u danaynayo ama gaal fiiriye beel gaal jecel yiraahdo beel weyn ah hadda wasiir wateen beel la yiraahdo gaal jecel islaan Mareykanka iyo Canada laga keenay farmaajo isku tim ah jireen meelahaas Canada laga keenay wasiirnimadii gaal jecel la siiyay wasiirnimadii gaal jecel ayaa la siiyay qasab ilaa ayada naqanayso wasiirka gaal jecel waligiin ma aragteen Ilaahay idinku dhaarshay dulmi jadid inay dulmi tahay hadda gaal jecel naag fawziye la yiraahdo aan waxba kala ogeyn oo diyaas baro qurba joog ah waxa la yiri ilaa gaal jecel ay wasiir u naqanaysaa waa dulmi jadid waxay sameynayso farmaajo dawladiisu inay tahay dulmi jadid dulmiga beelaha Soomaaliyeed gumaadka beelaha Soomaaliyeed inay tahay gaal jecel ayaa saas la yiri gaal jecel saas baa la yiri qof walba wasiir been loo ballan qaaday waa laga baxay balanti qof walba qofka ugu liita dadka si shargaray saaxiibaday qof walba qofka ugu liita la keenay muduloodo aad aragteen tiradooda waxa la siiyay wasaaradda amniga oo laan kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha hoos timaada ah iyo waxa la siiyay Ilaahay kuma samadiiday iyo waxa la siiyay wasaaradda yiraahdo warfaafinto been abuur ah oo bug ah ala siiyay وزير الدولة مدحتويد عبد الله مع النور ولكن عبد القادر مع النور وحال عبد الله مع النور إنه لجبي وظلم جديد ظلم جديد واحد دمع سنته دولتنا اللي هذا ظلم جديد يا فرماجو واحد دمع سنته وانتاس وجدك وجوين إن كان مجرتنا الجحل اللي هذا وزير كأرمها جودها فدرالك يدبوشيسين تلاقت دقي حدا وحيت هاي إن إيش حدا نور الدين إله إن اللي لها ماشان كجرو حدا وزيرك الجاشان لقنا وحال لقت دقي ديك الإمريف لمدة عن وحبة قلن ما مولدي وحلا قدرية مجرته فرماجو هذا الظلم السعودة واي فرماجو وانين ظلم السعودة بيلاها الصوماليين والروائين والظلمية نوردين واكو سلام نوردين لا يفهم كجرا هذا وزيرك قاشان لقى وربحين دقا سيرين نوردين اسكا باشال وحا إذي شيء يا ماشان مركا وجيتك ugu waxay tahay in la gumaado beelaha muqdisho dega war see ku dhacday dawladda la sheegay Soomaaliya runta ma rabto dawladda la sheegay oo Soomaaliya ka talisa muqdisho ka talisa dagada muqdisho la biisha eelbarka muqdisho la biisha dhulalka muqdisho canshuurta laga qaada aniga hooyaday ayayday awooheyga canshuura laga qaada dukaamay ku leeyihiin bakaaraha waxaan la qeylanayaa waa intaas maraakiibta xamar ku soo xirata anaka iska leh canshuurta bixisa raamuna rabtaan misbeen canshuurta bixisa anaka iska leh ruma rabtaan idinka guriyahayna xamar canshuura laga qaada canshuur hadda garowe iyo cabudwa iyo garbahaarey lagama soo qaada canshuurtaas ani hooyaday canshuura laga qaadaa of course ma fahmi adiga waxaan la qeylanayaa waa intaas aniga hooyaday iimaanka Ilaahay ka qaaday qof yo farmaajo in adeerkiisa farmaajo qaraabo ay yihiin aniga hooyaday canshuur laga qaadaa hooyada oo cabud waa ka degan igirbahaarina canshuur laga ma qaado iyo balad xaaw iyo meesha la yiraahdo baar dheere wariya habaryartay eedaday walaalahay canshuur laga qaadaa xamar degan
walaasha iyo dada iyo habreerta cabud waaq joogana canshuur lagama qaado iyo baar dheer iyo garbaari markaas waxaad rabtaa in xamar ugu sii maamushid aad nin galow ka yimid wasiirka arrimaha gudaha aniga iga dhigaysaa ma taasan dulmi ahayn wallahi inan been idii sheegayn hooyaday iyo walaalahay oo dhan canshuura laga qaadaa kuwa tukaamo leh kuwa guryo leh xamar canshuura laga qaadaa laakiin adiga farmaajada difaacayo qabiil ahaan ku difaacayo meel ila soo fadhiisanayo hooyadaa joogta meesha la yidhaahdo dhobley iyo kismaayo iyo buulabul iyo meesha la yidhaahdo baar dheere iyo cabudwaaq iyo balad xaawo canshuur lagama qaado laakiin hooyaday iyo walaalahay canshuura laga qaadaa markaas waxaad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalki iyo dastuurki iyo garsoorki cadaaladda iyo farmaajo reerkaaga siinaysaa madaxweyne ma taasaa kula quman wasiirka arrimaha gudaha reerkaaga siinaysaa federaalka dib u heshiisiinta kii dastuurka siinaysaa wasiirka garsoorka cadaaladda siinaysaa kii waxa siinaysaa wasiir walba wasiirku ka fiican yahay digri iyo marifle midaan waxba gelin oo Shariif Xasan iyo Jawaari aan waxba ogeyn oo iska socdo gudoomiyihii magaalada Baydhabo ahaa wasiirka gaashaandhigga ka dhigaysaa waxa sanadkan noo sheegaysaa ana kana siinaysaa wasiir dawlad gaadiid iimaanka ilaahay ka qaad iimaanka beelaysaa waxaba ka sii daran midka Cabdiraxmaan Dheere la yiraahdo ilaahay Cabdiraxmaan Dheere wallahi wax kale ku dheeyn Cabdiraxmaan Dheere caaw wixii laga bilaabo noo dagaal haduu is cajirin habeen walbana waa ku sheegaya aqalka saraan dhaafsiisay wasiirkii aan dhaafsiisay meel walba naga soo gashay Yusuf Garaad wariyaha habar gidir oo aragtay tiradooda inta la eg tahay wasiir arrimo dibadda oo qaleel u soo qaadaysa oo laga jaray iskaashigii iyo xiriirka caalamiga midkan xoolaha wasiiradda waxbarashada loo magacaabay xawaal muwaalan tahay xawaal wax u soo qaadaysaa wasiir ii sheeg waxbarasho yariisow iimaan beelaha iyo midkan kale la yiraahdo magaciis ducaale ee hoteelada iska leh hadda wasiir amni iyo warfaafina muduloodo intaas la eg u soo qaadaysaan wasaaradda amni iyo warfaafin oo amniga ee hoos tagta maxay qabanaysaa wasaaradda amniga maxay qabanaysaa hooyada iyo walaalahay markuu lagu diraa rabtaa inaad soo xirxirtid tugiyo qaa'inka canshuurta hadday bixin waayeen waxaa rabtaa in lagu yiraahdo soo xirxir oo adiga lagu adeegsadaa rabtaa midka ma jeertana ciise maxamuudka wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay hadda Soomaalida haddaysan runta isku sheegin waxbaa qarsoon midkan garow laga keenay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu war soo saaro aad rabtaa inaad dadka soo xirxirtid ducaalow adigana hoteeladaada iyo qaraxyadaada iyo iltixaadnimadaada ay ku ilaalsatid meesha oo cusublo uu ku keenay isheeg yiriisow mu xadarta inaad hadashid markii dadkii oo waqooyiga la yiraahdo ka baxa dhulalka dawladda iska leh hadda la yiraahdo dhulalkan degantiin on dawladda iska leh hadda abgal ay soo istaagay mudulad goofkeena waay oo la laayo waxa rabtaa inaad tiraahdo dawladda howlgal fiican ay sameeyso maanta intaas rabtaa waxaad rabtaa dadkii guriyaha hore u gatay oo 20 sano ka hor guriyihii ay gateen reerka farmaajo u ka dhashay 20 sano ka hor guriyihii ay gateen inay maanta ay yiraahdaan guriyihii 20 sano ka hor ay ka baxsadeen $10,000 maanta wuxuu marayaa $2 milyan inay yiraahdaan hadda anaaba og ku badan hadda saas yiri inay yiraahdaan 2 milyan maanta maadaama uu joogo hadda marka horeba dhulka anaga maba gadaninba oo lagu yiraahdo wasiirka amniga oo maxkamadii wasaaradda garsoorka ninka joogo farmaajo isku leeyihiin oo wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda laga dhigay soo fuli amarkan wasaaradda arrimaha gudaha ay ku tiraahdo ducaalow soo fuli oo marka oo aad soo fulisid oo xaq ninkii xaqa ku gaday guryaha oo farmaajo adeerkiis ka gatay iyo abtigiis iyo adeerkiis 20 sano ka hor guriyihii laga gatay xamar ahaa maanta waxay rabaa inay yiraahdaan guriyihii xoogan la haysta weligii ma aragtay idinka aqliga fahma horta wariyaha reer muqdisho aqliga fahma wallahi waxa idin sheegaya waa xaqiiq maanta maalna ayna fahmi doontaan laakiin mar walba ani waxa ogahay in social media laga xoog badan yahay oo farmaajo reerkiisa ay ku xoog badan yihiin oo midkiiba uu leeyahay 20 Facebook kooda ugu liito ugu jaahilsan toban Facebook iska leh aniga rabbi aan ka cabsanaya cid kale oo aan ka cabsanaya ma jirto rabbi waana sheegaya runta waxa ay damqinayo hooyada iyo walaalay canshuurta laga qaaday fiiriya farmaajo reerkiisa 20 sano ka hor waxay ka teen dhulalkii xamar ay ku lahaayeen si fiican ay faham si fiican hadda dacwado badan maxkamadda yaal oo la isku haystaa 20 sano ka hor dhulalkii ay ka teen oo $10,000 $20,000 laga siiyay maanta dhulalkaas wuxuu marayaa lacag 1 milyan iyo 2 milyan ayuu marayaa nus milyan ugu yar
waxay taagan yihiin dhulalkan hawiya xoog nagaga haysta ninkan abgaalka ah inaagtan abgaalka ah awoogayna meeshan ku dileen oo dhulka xoogay ku qabsadeen ninkan habar gidirta ah hadda xoog meeshan ku qabsaday ninkan sheeqaalka ah hadda niman kale u adeegsanayo asaa xoog meesha ku qabsaday saasay rabaan reerka farmaajo markaas waxa la rabaa wasaaradda garsoorka ay ka haystaan oo farmaajo adeerkiisu haysto oo farmaajo wiilka adeerku yahay adeerkiisu haysto loo magacaabay oo isku reerka ay yihiin waxa la rabaa inuu yiraahdo hadda warkaas waa isku dib dhacday maxkamadda waa in amarkaas fulisaa maxkamadda ay tiraahdo waa fuliyay wasaaradda arrimaha gudaha loo geeyo hadda maxamed uu ogyahay waa kaas uu soo qoslayaa cid murusada hadda ay haysataa maalin hore la xirxiray islaan farmaajo adeer oo naag xildhibaanada oo nadiif la yiraahdo mariixaan ayaa xirxirtay ilaa tukintiga keen fiiriye wasaaradda garsoorka maxkamadda waxay leedahay si fiican u faham maxkamadda waxay leedahay waa inaad amarkaas aad soo fulisaan markaas wuxuu sameeynaya maxkamadda waxay sameynaysaa waxay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha amarkan waa in la soo fuliyaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay u dhiibaysaa iyada wax ma fuli karo juxa hadda galow ku yimid galow muxuu amar ka fuli karaa galow ka yimid wasiirka amniga ayuu leeyahay fuli ninkan abgaalka ciidan xoog ku haysta ee farmaajo isku reerka yihiin reer dalalka ah hadda guryaha loo soo dhiciyo reer diiniga markaas ay wasaaradda amniga ordaysaa qalaf agtay marinaysaa reerkii markaas ay yiri soo fadhiisanaa wuxuu leeyahay cid dulmi lagu haystay oo guriyihii xoog lagaga haystay ayaa maanta dawladda dadkii xoog bay meesha u qabsadeen kadib waxaa dhacay kadib ciidamadii dawladda ayay isfar saareen meeshiina waa laga saaray hadda burcad bay ahaayeen guryo dhacay hadda dadkii guryihii gatay 20 sano ka hor ayaa loo adeegsanayaa yiriso iyo ducaale of course ma baqasheen haddii buuqa dadka muqdisho uu batane caasimadii oo dhan waxaa laga rarayaa muqdisho ilaa ma cabud la geeyo hadii la rabo cabud waa farmaajo uu ka soo jeedo ma la geeyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda dastuurka farmaajo reerkiis labadaba ay haystaan waxay go'aan ku gaarayaan in muqdisho aan lagu shaqay karin waa laga rarayaa caasimadda muqdisho meesha rabtalaad adiga waa noo ficnaa lahayd taas ay dhici lahayd waa ficnaa lahayd qof isoo qoray mursado qof kale muusoo qoray mursado jacala mursado xataa waa jacala laakiin waxaan ka hadlay aniga waa farmaajo waxa mursado iyo keenay meeshaan mursado ay yihiin meeshaan nin farmaajo la yiraahdo oo qabyaaladiista ah meesha xoog ku haysta adiga mursado ay ugu waal iyo qayri warkiis kuma jira aniga ninka haysto waa farmaajo oo meesha xoog ku haysta hadda maxay yihiin mursado maxay keeneen nin mustaflix loo yiraahdo hal nin oo yiriso la yiraahdo keensaday maxaa kale meesha yaal wax kale ma jiraba waxaan dhan farmaajo noo soo xulay waxaan dhan waa wax farmaajo uu noo keenay oo la rabo dadka in lagu bahdilo oo la rabo in galmudug lagu laga saaro maamul goboleedyada oo la yiraahdo waa gobol ibar oo la rabo in la yiraahdo muqdisho caasimad ma istaahisho oo la rabo in la yiraahdo 20 sano goor guriyihii farmaajo adeeradiis iyo awowyaashiis laga gatay la yiraahdo hadda lama gadan abgal habar gidir shaqaale jinni iyo dubli iyo murusade ayaa xoog ku haystay murusade ayaa xoog ku haystay in la yiraahdo la rabaa saas waa qorshaha ugu weyn waa saas war meeshaan dawladda la soo dhisay waa dulmi jadiid waa dulmi cusub maxaa ka dhalanaya marka dulmiga cusub waxaa ka dhalanaysa cali ilaaha ka dhalanaysa farmaajo maanta uu hadlaa la yiri wuxuu yiri meesha uu dhilaa xukuumad baarlamaanka ninka inuu dictator yahay uu rabo war adiga farmaajo ma aqliga la adahay ma fiyowdahay ma waxa si ka ah madaxweyne aniga ilaa hadda madaxweyne kuma fahmin فrinteeda madaxweynaha la gaarsiyo kuma fahmin wallahi aan ku fahmin oo billahi aan ku fahmin ma waxa ku dhiman ma si kale wax yiin madaxweyne maxaa qaldan wa adigan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibujinta garow ka keenay maxaa ka qaldan madaxweyne wa adigan ninka in adeerka ah siiyo wasiirka dastuurka wa adigan Yusuf Garaado iska maskiin ah wasaaradda arrimaha dibadda siiyo ka reebay iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah wa adigan Cabdiraxmaan Dheer 4 ku shaqeynaya wasiirka dawladda gaadiidka ka dhigay ducufnimadiisana qaatay madaxweyne maxaa ka qaldan waa adigan xawaalo tiradooda aragtay siiyay wasaaradda waxbarashada waa adigan wasaaradda amniga oo laan ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ah iyo wasaaradda warfaafinta aan waxba gelino hadal ah warkeeda wixii la sameeyay sheeg ah muduloodo tiradooda aragtay inta la egyihiin in muqdisho baaxadda ay kaga fadhiyaan siiyay war adigan nin xishoota ma xishootid miya anigoo iskala maraakiibta degada xamar ka soo degaysay baad waxa isii gaadiidka iyo degada markaas aad cashuurta cuntid يعني Soomaali way baaday war farmaajo maxaa ka qaldan madaxweyne ma kaniiniya isticmaasha ma duran tahay ma waxa qaldan madaxweyne aniga ma fahmin aniga kullay buuga aan qortay oo qabyaalada uu ku dheehan yahay marka arkay horta aniga ka qoostay markaas waxaan go'aansan inaan macalad aan kugu noqdo adigan eedid aynay dhinta Allah naxariisto General Morgan
xafladii caleemasaarka uu kaga qayb galay fiiriya Morgan hadda Morgan waa nin xalaal ah xafladda caleemasaarka uu joogay ha maxaa yeelay maxamed siyaad bara gabadhiisu qabo Morgan waxa kama qori kartid maxamed siyaad gabadhiisa oo adeerka ah oo adiga wax ka dhigo Mareykanka ku diray ayuu qabay Morgan waxa kama sheegi kartid General Aidid Allah u naxariistana waxa tiri General Aidid wuxuu ahaa dhiyacab wuxuu ahaa nin xin oo aan dadka laaya hadda Morgan muxuu ahaa Morgan من مساعد كجلو سجوده صلاة دكتور هايو أو موحد هو ها Morgan ميوصل إيه Morgan نك ما تدل لايناي ميوصل إيه Morgan نك إيشك في النوع لن كدم بي ميوصل إيه Morgan نك إلا ما أنت لقينا سلايه وأديك يجري جنرال أديد وحوها ليجي أب عن حين وضدك الله يو ببا يجري هذا Morgan نمحوها مرك حفلة على مسار كفرية بريه هيرا عبسي عاد كعبسي ليش تقولين كله أي حفلة وجود دي جنرال Morgan وفرية مركا اوكي Morgan wuxuu ahaa nin ilaahay ka baqa Morgan wuxuu ahaa nin ahlu salaad ah Morgan wuxuu ahaa nin fiican General Aidid nin xun ahaa ha General Aidid farmaajo madaxweyne nin xun buu ahaa okay Abdullahi Ciise Maxamuud ma taqaanide kuma soo gaarin madaxweyne farmaajo muxuu ka biyay maxaad Abdullahi Ciise ilaagadi SYL aad been ugu sheegtay bii sheegi kartaa hadda qabyaaladiista tahay Abdirashiid Cali Sharmaake ma taqaanid aqoon u malihid هذا عثمان محمود أنا مجرتنا كل هذا الرئيس محل كربتي وردقري مريفله مركز الله ده سومالي ورن دقري مريفله كم جيران سومالي ليز محكى بيين نية وصاحبه وفرماجه ومدح وينه هذا أنا جينا قبيلة جستها مركز رواك وجوا أنت أن كقولنا أي أو أن كإيشك إن كل هذا الرئيس وأنت سبوجس أو قرتين مركز أركان كاقوسته حد الله يكون وحمي يا لب حد جلاه وزير ده أصول استي سومالي دورن ويكو قادر إن التهاي حكومة دان مانتا خيره أصول ديبتي أو كل واقع إنك أذيك أفيانك أو رجالها أصول مريسي أو أذيك مسكح هذا فهد ياسين أذيك أذليهين حكومة داس دقري مريفلا أكود دولنتي هوية أكود دولنتي يا وهذا إساق أكود دولنتي إذا أورونات مرة متك وكليتا كنت متك وكليتو ayaa keentay war 40 iyo laba fiiriya 68 way golaha wasiirada tolahan si fiican ay maqal 68 wasiir dawlayaal iyo wasiir ku xigeenno waa 68 40 iyo laba kamid ah si shargareey please saaxiibadayda shirka lagu qabto fiiriya 40 iyo laba kamid ah waa baarlamaanka 40 iyo laba kamid ah baarlamaanka Soomaaliya way hadda baarlamaanka manacsiya ku badan oo baarlamaanka u jeeda ay fiirsanay war baarlamaan oo maxoolatiin 40 iyo labada hadda 5 laga siiyay wasiiro inta kale waa wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad lagu safay wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad nin oday ah oo saaxiibkay oo qabiir ah ayaan wacay Ali Muuse la yiraahdo Ali Muuse Cabdi wariye weyn ah Ali Muuse waxaan dhahay xildhibaanadan la siiyay wasiir ku xigeenada iyo wasiir dawlayaasha inay iscasilaan ma laga yaabaa oo meesha ay ka tagaan markaas uu yiri ilama ah maxaa dhacaan markaas wuxuu yiri kulligood waxay rabaan inay safar iska aadaan xogaha 20 kun 30 kun ay ka soo helaan safarka ujeed marka aaw musuqmaasuqa ay sheegaysaan Hussein Xasan Diine soo galay si shar garay mid ka wacdaan maanta wasiir ku xigeen la siiyay hadda wasiir dawladda xataa loo siin waay iimaanka ilaahay ka qaad ina Umar Islaw wax iimaan kala hadda waxay rabaan xildhibaanadan 40 iyo labada la magacaabay hadda loo quuri waayay in meel sare wasiir xataa la geeyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlayaal ضعفي هذا وحال رأي إن برلمانك إيميل مريان والأفرتن إلا بدين إذنك معواناتين وإذنك هذا واحد تين محاول وزير النسي واي مع عبد الرحمن حوش جبريل أفر إلا واتكس إسكا صارنا كافي عن مجوحه ومهسنه إسكا قيلو إسكا عبو كافي عن موحا كافي عن إلهي كمسا مديدة يوسف قرادو إدو متلي بوحو قالوا سنجرنا كافي عن موحا كافي عن دعاله على الاتحاد وحبك لوغين مع عبد الرحمن يريسوا كافي عن حلبانه وأديك مركز وزير كحيين لغاد لغا يا وزير الدولة maxaa diiday in wasiir laga dhigo adiga mis weydiis wax diiday mis weydiisay hadda waa lagu yisay waxa ila quman oo Soomaalidana la quman inta dulmi aniga waa huba mid huba aniga caawa habeen adduun fadlan si shargaray iga qora taariikhda Soomaalida ma qorto farmaajo dawladiisu Xasan Sheekh Maxamuud meeshu wax gaarsiiyay fiiri imaqlaya Xasan Sheekh Maxamuud ماشي واحد وجارسي حدثن دب ولا إنسان سمينين والله إن سهرمر سمينين حدثن دب ولا سمينين أو ماشي أن لجوك لجورين
oo xukuumadan la yiraahdo dulmi jadiid dulmi hada dulmi jadiid dulmiga cusub xukuumadan la yiraahdo hadaan la isku farsaarin oo aan lagu kala yaacin xasan meeshii wax gaarsiiyay aan la kala boodin inay wax horumarinayso ilmaha caaw iga qora waa haween adduunye caaw iga qora caaw ma aragtay caaw hadda fiiri Yusuf Garaad goorma idin sheegay inuu guul wadaya dib u raac fiidiyowga dhowr boqol oo qof fiirso dib u raac fiirso goorma sheegay inuu guul wadaya waa kaas wasiirka arrimaha dibadda laga dhigay oo iskaashiga caalamiga laga reebay qorsheynta iskaashiga caalamiga nin wasangeli daarada la siiyay ha iskaashiga caalamiga qorsheynta iskaashiga caalamiga walba saas wax kala loo siiraacay arrimihii gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta in Ciise Maxamuud Majartada lagu siiyay wasaaradda amniga oo qaleel ah oo wax ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha aana in abgaala lagu sabay yaa warfaafintii oo hadal ah hadda awal kor biriisu afyeenka xukuumaddu waa wax xilma salaad gabeer Allah u naxariistay markii la dilay oo adeerkiis Maxamed Siyaad Barre uu dilay farmaajo adeerkiis Maxamed Siyaad Barre markuu dilay salaad gabeere Xuseen Kulmiye la magacaabay Xuseen Kulmiye afrax la magacaabay meesha iska fadhiyay ha Xuseen Kulmiye hadda sheekada socoto waa sheekadii oo kale haddii xilal fiican loo magacaabi lahaa dadka waxbay ahaan lahayd aniga midaan ka hadlay faham haddii Yusuf Garaad xitaa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga walba saas la dhihi lahaa waxbay ahaan lahayd haddii la dhihi lahaa wasiirka ilaahay kuma samadiiday haddii la dhihi lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga nin abgaala la siiyey waxbay ahaan lahayd haddii naagtan gaal jecel ee wasaaradda xun qaadatay ee ka timid Canada iyo meelahaas laga keenay haddii Daahir Amiin Jiiso laga dhigi lahaa xildhibaan shaacir laga dhigi lahaa waxbay ahaan lahayd qof wax iska dhici kara haddii wasiir laga dhigi lahaa oo gaal jecel ah waxbay ahaan lahayd war haddii fiiri ceerkii oo ka cabsaday cabsiyihii habar ajigii ayaanlihii kulli Yusuf Garaad waa baash way istaahilaan wali wax xilwaan bay sanaqan way istaahilaan wasiirnimo war ma nin kale baasha weys hadda nin walba ninka waxa rabtaa adig madaxweyne Afrikaan ah hadda qof walba sawirku waa soo diraa darabtaan madaxweyne Afrikaan waxa jiro markii wasiirku uu la kulmayo asoo saan u fadhiisaan madaxweyne u fadhiyaa ma ogtahay wasiirka dhulku fadhiisanaya labada lugood ku fadhiisanaya saan asoo labada lugood dhulku ku fadhiyo ayuu la hadlayaa madaxweynihi hadda farmaajo noocaas waa inuu wasiirada ula dhaqmo madaxweynaheena noocaas ayuu rabaa waa ninka maanta kaaga dhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta garow hadduu sheegayo maxuu wasiirka arrimaha dibadda ninkan magaciisa la yiraahdo Juxa oo hadda been magaca Juxa fadlan sii sheergaray ugaaska caday baantiin waa inaad sheegaysaan fiiriya ninkan la yiraahdo Juxa markii uu magacaabayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Majartada Ciise Maxamuud oo faroole uu keensaday maxuu Juxa oo magaciisa been ay tahay magaciisa waa been hadda magaciisa Juxa waa been Juxa magaca la yiraahdo Soomaali ahaan waa been Carabi weeyaan Juxa muxuu u geeni waayay wasiirka arrimaha dibadda oo Yusuf Garaad uu keeni waayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta adiga caawa markaa seexanaysid baliis fikir waxaad isweydiisaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta hadda fiiri 4 wasaaradooda ugu waaweyn waa idin sheegay arrimaha dibadda gaashaandhigga maaliyadda iyo arrimaha gudaha hadda fiiri Majarteen maadaama ay afartooda xaq ay u leeyihiin midkood muxuu arrimaha dibadda u siin waayay Juxa oo Majarteen ah ninkan Yusuf Garaad oo hawiye ah arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta u siin waayay macna ku jira Yusuf Garaad waxa la rabaa wixii gudaha ka dhacayo dhan inuu qariyo oo yiraahdo maya dawladdu way shaqaynaysaa maya dawladdu horumar ay ku talaabsatay maya dawladdu hore u socotaa hadda waa intaas Yusuf Garaad inta loo xil saartay hadda waa ogtihiin waligiis xasan Sheekh Maxamuud Yusuf Garaad muusan ku soo amaanin Facebook muusan ku soo amaanin qoraal xasan Sheekh uu ku soo amaanay waligiis aliis ma soo qorin Sheekh Shariif qoraal uu ku soo amaanay waligiis ma soo qorin farmaajo markii la doortay 24 saac amaan uu ka bixi waayay Yusuf Garaad 24 saac Mr. Garaad amaan ayuu ka bixi waayay saasa la rabaa marka waligiis inuu u amaano dawladda haddii muqdisho ay ku layso haddii dadka la xirxiro haddii dadka la caburiyo haddii hantadii bagaaraha taalo kulli waxa la rabaa inuu Yusuf Garaad u yiraahdo dawladda hor fiican ay wadaa oo international community war waxaas waa laga tagay dadku way hadlayaan adeer farmaajo madaxweyne kacaankii Maxamed Siyaad waa laga soo tagay kacaankii Maxamed Siyaad adeerka hogaamin jiray waa laga soo tagay maanta muqdisho
dadka degan way bisil yihiin nin baa isoo bacreer muqdisho ah bardhaxaas wuxuu yiri nin waxa la yaabanahay dadka muqdisho niyo damiir malaha miya ma ebera maxaa ku dhacay war maxaa dhacaan de ninkan farmaajaad muqdisho waa iska taageersan dad ba iska taageersan barakacayaal iyo qaxooti iyo dad ku dhaxnool dadka muqdisho ku dhashay oo meelahaas ka soo qaxaa ninka taageersanay hadda maxaa dhacaan de abtiyo macaan markaas wuxuu yiri colaadii maxamed siyaad bar uu geysto isaaq iyo hawiyi majartaanka ugu gumaada sheegaysaan de war waxaas la iga dhaaf uu yiri war labada kun iyo dabadii oo daraad ahayd maxaa muqdisho ka dhacay yiri Cabdullaahi Yuusuf uu geystay Allah naxariista Cabdullaahi Yuusuf muxuu geystay yiri bagaariya la duqeeyay suuq xoolihii BM biitam 24 saac habeenka lagu garaaci jiray hadda dadka muqdisho ma hilmaameen yiri waxaas may waxaan dhahay dadka ma hilmaameen reerka farmaajo ka dhasho mariixana hadda mariixana ina wax ka sheegay ma aniga laakiin reerka farmaajo ka dhasho mariixana markay hawiyaha ay la joogaan habargida gaar ahaan habargidta saaxiiba ayeen bariyii dambe hadda inkastoo farmaajo colaad habargidta uu ay kala dhaxayso colaad uu qabo marka habargidta ama hawiyahan kale ay la joogaan waxay leeyihiin hadda daaroodkii ani waxaan wallahi aniga cid aan ka gambalay ma jirto wax walba oo sax ah oo really aan maqlo sheegaya marka hawiyaha ay la joogaan habargidta ay la joogaan mariixaanku waxay dhahaan hadda waxa waaye daaroodkii wayna soo ficleen kablalaxi hadda waan la soo ficlay hawiyaatiina lahaa inta markay joogaan waaya oo kismaayi ee rabaan in ogaadeen kala la dirro barhiira la garab siiyo isbaasiga duucada jabbi inta sano waxay leeyihiin hadda daaroodka dhan waxay noo ficlaan oo ay noo dhaqaajiyaan oo ay nagu ficlaan hadda waxay nagu ficlaan wax kale ma aha hawiya ayaad garab siisiin ayay nagu ficlaan oo hawiyaatiina aan lagu tiriyaayo saas weeyaan habargiga gaar ahaan saasay dhaan mariixaanka wax riili ah waxaan idin sheegay wax riili ah ayaan idin sheegaya aniga ma aha waxa idin cid alla cid walba markay majartaanka iyo hartiga iyo kablalaxa harti iyo kablalaxa ogaadeenka majartaanka wax asna la isku dhahaa markay arkaan maxay dhaan ma taqaaniin hadda idinka idin naanaka niman daarood baan nahay daarood anaka daarood baan nahay saasay dhahaan majartaanka baroon iyo hartiga iyo kablalaxa nimanka la yiraahdo kablalaxa waa niman fiican oo boqora oo nasaba kablalaxa wax gaara oo wallahi ma jirto waa nasab kablalaxa markay colaad ku qabaan way ku sheegayeen waxay ku leeyihiin haddana waa noo dagaal kablalaxa waxay ku leeyihiin hadda waa noo dagaal hawiye waa noo dagaal hadda kablalaxa waa isnaqana ogaadeenka isnaqana anaka nimanka la yiraahdo hadda muddo isdagaaleen hadda waa noo dagaal ay ku leeyihiin laakiin awsadow aw mariixaanow adiga marka inta joogtidna waxa leedahay hawi ahana kablalaxi igu xagliyeen marka xagga aadidna waxa leedahay been waayo aniga daarood baan nahay daarood hadda farmaajo yaa lagu qaldin waa qaldan tahay qoomiyad iyo qabiil jira haddana yow gaar jecel kaliya ma gaartiin reerka farmaajo ka dhasho hoose hadda gaar jecel ma gaaraan gaar jecel tiradaas ay ka bateen wax kale iska dhaaf hadda waxaad rabtaa in qoomiyad dhan iyo qabiilo dhan oo isaaq majarteen hawiye leh inaad la dagaalantid maanta marxaladda dalka uu ku jiro adoo maxaa yeelay maxaas u leeyahay waxaan u leeyahay golaha wasiirada aad soo dhistay la yiraahdo dulmi jadiid si fiican ii dhageysta dulmi jadiid xukuumadan la yiraahdo ee maanta aad ku dhawaaqday hadda waa dulmi jadiid waxaad ku dulmisay qabiilo Soomaaliyeed waxaad dhulka ku jiiday oo aad ku tumatay oo aad dhulka la jartay qabiilada Soomaaliyeed hadda maanta nin abgaal baa isoo wacay wuxuu yiri hadda abgaal ani marka hore waa ogaa in saaxadda ay ka sii baxeen laakiin habargidida ay ugu daran uu yiri hadda niyo habargidida abgaal noo kala qaadin hadda waa isku mid waxa hadda waa hawiye wax la cunay maya wallahi billahi taala anaka marka hore aba ogeyn uu yiri hadda xaa ka maqan wasaaradda amniga lagu siiyay warfaafinta wuxuu yiri ariga anaa lagu soo wasaaradda amniga xaq gashaa uu yiri wax soo xirxir waaye dadkaaga soo xirxir warfaafintina hadal waaye waxa arimaha gudaha ugu diiday abgaal mudulood oo xaq ay u lahaayeen afarta wasaaradooda waaweyn in arimaha gudaha mudulood la siiyo waxay tahay gobolka banaadir wuxuu yiri arimaha gudaha hadda ka hor fiidiyoyaasha dib u sii tixraaca aniga xogta waxaan jeclahay dadka saaxiibadeeda ah oo website-yada igala socdo oo Facebook igala socdo YouTube igala socdo inaan daqiiqad aan ugu soo gudbiyo fiidiyoyaasha dib u sii tixraac farmaajo markay muduloodka ay la kulmeen wuxuu ku yiri way ku jirtaa barfilkayga wuxuu ku yiri maxarabtiin ala yiri markaas muduloodka waxay yiraahdeen anaka waxaan rabnaa wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka iyo wixii kale aan ugu diri kartid markaas yiri maya arimaha gudaha iyo federaalka
iyo gobolka banaadir islama qaadan kartaan arrimaha gudaha iyo federaalka iyo gobolka banaadir islama qaadan kartaan farmaajo saasuu yiri wallaahi bilaa saasuu yiri wuuna ka dhabeeyey maanta arrimihii gudaha iyo federaalki iyo gobolka banaadir in abgaal ay isla qaataan ayuu diiday war adiga madaxweyne waa ku sidee madaxtooyada xeandaabka ay ka dhisan tahay goobdad ay leeyihiin ahaayeen waa la dhisay dhinacyada guryaha kaaxigoo dhan dadaa iska leh inta u bax dadaa iska leh guryaha mise waxaad aaminsan tahay qaacidada ah in ay dhulkanba dhul la haysto uu yahay oo dad ay haystaan masaasaa madaxweyne adiga aaminsan tahay dhulkan maxaad u malaysaa in hawiye ay haystaan oo la qabsaday xoog lagu qabsaday hadda reer kaxda kuwa kaxda deganaa la hadlayaa galmudug waa la soo hadlay muqdishona caasimadda waa laga rarayaa laakiin ogaada kaxda naftirkeeda waxaa la dhihi doonaa sifo sharciga laguma dhisin kaxda naftirkeeda wasiirka arrimaha gudaha ee ciise maxamuud ee federaalka iyo dib-u-heshiisiinta wuxuu dhihi doonaa sifo sharci kuma dhisno waa in meesha laga saaraa saasuu dhihi doonaa wuxuu dhihi doonaa wasiirka dastuurkana wuu ku raaci doonaa hadda waa lis hayaa ragow waa lis hayaa maanta waxaan idin leeyahay ninkan farmaajo ah oo madaxweynaha soomaaliya ka ah waa nin qabyaaladiista ah waa nin nacab qabiilada qaar sii shargareeya waa nin raba dadka inuu dulmiyo wixii maanta uu soo dhisayna waxaasa cimro qaadasho idinku filan noo qabiil reer dalal farxiyo waa isnaqaanaani adiga gabar reer dalal baa tahay noo qabiil waa runtaa noo qabiil maya qabiil hadda dulmi jadiida la yidhahdaa adeerkaa farmaajo wuxuu soo dhisay waxaa la yidhaahdaa dulmi jadiida la yidhahdaa hadda waa dulmiga cusub hawiyaa lagu dulminayaa isaaq baa lagu dulminayaa majarteen baa lagu dulminayaa soomaalida lagu dulminayaa digli mirifla lagu dulmiyey cid aan lagu dulminin ma jirto marka dowladdan meel ay gaarayso ama farmaajo meel uu gaarayo dowladdiisa dulmi jadiid la yidhaahdo dulmiga cusub ma jirto nin la yidhaha fahad yaasiin ayaa horey gadaal u wata fahad yaasiin oo al-ictisaam ah oo al-itixaad ah oo al-shabaab dhalay oo tug kala jirin ah ayaa horey gadaal u wato dhegta wax ugu sheegaya fahad yaasiin ma taqaaniin hooyadiisa waa waxaa la yidhi waa leelakasamaa la yidhi mise waxaa la yidhi ma aqaan adiga waa qolooyinkan puntland hooyadiisa xaaskiisa waa mariixaan walaashiisa waxaa qaba mariixaan eedadiisa waxay u dhaxday mariixaan habartiisa waxay u dhaxday mariixaan haye hadda intaas wuxuu u sameeyey farmaajo 40 milyan oo qadar uu ku soo qaaday waa qabyaaladaas hadda ninka waa nin reer xasan ah baad yaasiin laakiin waxaas oo dhan wuxuu u sameeyey ninka al-itixaadka ah qabyaalad asii farmaajo waxay ku heshiiyeen waa qabyaaladda xaaskiisa waxay la dhalatay idaajaab bay la dhalatay idaajaab kooy ku ab idaajaaga VO-da ka shaqeeyo murtida hadda idaajaaga mariixaan waa walaalo ifaad yaasiin xaaskiisa iskooy isku aabo yarka shalay loo magacaabay agaasimaha madaxtooyada mataqaaniin oo reer xasan waxaa la yidhahdaa cabdinuur shalay dhan facebook uu naga qabsado uuna waala cabdinuur what's cabdinuur ethiopian waa xawashi ah ethiopia u shaqay jiray yaa xalku magacaabo mataqaaniin fahad yaasiin u magacaabay fahad yaasiin maxay isku yihiin fahad yaasiin walaashiisa oo masar joogto saddex caruur ah waxay u dhashay cunugan cabdinuur ee shalay loo magacaabay agaasimaha madaxtooyada hadda fiiri si fiican ii maqal farmaajo inuusan xishoonaynin tigreetu soo qoray wiil yaroo la yidhahdo shadoor xaaji shadoor hadda wax badan soo qabtay oo agaasimihii warfaafinta madaxtooyada ahaa oo maxamed muuse ah hadda maxamed muuse xilma haystaan ma ogtiin maxamed muuse agaasimahaas madaxtooyada iska haysteen iyo gudoomiye ku-xigeen gobolka shabeellada maxaa dhaxamiya ma aqaane maxamed muuse oo xasan sheekh maxamuud la shaqeynayo nin abgaalo maxamed muuse ah farmaajo inuusan xishoonayn dikreeto inuu soo saaray ayuu ku bedelay wiilkan fahad yaasiin adeerku u yahay walaashiisna fahad yaasiin la dhalatay fahad yaasiin walaashiisa la dhalatay ayuu cabdinuur qabaa oo 2 caruur ah miya 3 caruur ah u dhasho masar joogta anaa idin soo gudbin doonaa magaca walaashi fahad yaasiin walaashiisa cabdinuur qabo iyo horadeeda hadda waxa meesha ka jira waa dulmi noocaas ah cunugi shadoor ahaaye maxamed muuse ahaa sidii meesha lagaga saaray hadda farmaajo qabyaaladiisa waa noocaas madaxweynehena hadda بريتو وأربعة أما قميصته وصعد مدحوينها كي وصعدها
kenya ayuu u socdaa wuxuu la balansan yahay Uhuru Kenyatta waad ogtihiin daraad in si sharci darro ah dhoble uu ku soo galay si sharci darro ah dhoble uu ku soo galay ayuu u tagayaa way balansan yihiin aramihii badda shidaalka ayaa laga wada hadlayaa shidaalka iyo badda ayaa laga wada hadlayaa farmaajo waa wadani dhug maalor waxaa la yidhi la taliyaashiisa laba arrin ay kala taliyeen farmaajo si fiican u maqal laba arrin lagala taliyay waxaa la yidhi farmaajo kow waxaad joojisaa hadalka badan jooji bishii labadii bil hal mar hadal stop hadalka jooji waa kow laba waxaa la yidhi socodka jooji farmaajo ee laboorka aadaysidii meel aadina la yidhi meeshaada ku jira hadda waa labadaasaa lagala taliyey markaasaa waxaa la sameeyey waxaa la keenay laba wiil oo kenyaan ah oo Fahad Yaasiin uu keenay laba wiil oo kenyaan ah waxay sameynayaan codadka fiidiyooga iyo codadka markuu farmaajo shir jiraad qabtaa waxaa la yidhi labadan wiil ee kenyaana duubaayo way jarjarayaan idhitinay ku sameynayaan wasaaradda warfaafinta codkii farmaajo la geynaa wasaaradda warfaafinta waxaa ka qaadanaya warbaahinta madax bannaan hadda waa sida hogaamiye al-shabaab oo kale ninka la yidhaha Axmed Diiri oo kale oo codkiisa la soo duubaayay al-Kataa'ib miya al-shabaab qolada ilaa warfaafinta al-Kataa'ib ayaa la soo marsiinayaa markaasaa la baahinayaa waa saas oo kale macnaha madaxweynaha lama arkaayo macnaha qadaf inuu galaa la diidayaa macnaha hadalla qaldan sidii maalin hore uu yidhi 30 wax magarata dhimato oo kale inuusan u dhihin inuusan hal mar carada ay ka badan uusan dhihin hawiye iyo majeertan iyo saaqi waan cabanaya aniga iyo digri mirifla Soomaali ma hadduu iska leeyahay u joog iska maasay ninkan u joog madaxweynaha hal mar lagu soo kacaa waxaa laga baq inuu yiraahdo hadda hawiye waxa ugu nacbanaya qolada la yiraahdo abrigiisa abgaal adduunka ugu nacbanaya majeertan isaaq ay sheegin kuwaas digri mirifla Soomaali ma laga baq waxaa la yidhi waa in codkiisa la jarjaraa laba nin oo kenyaan la keenay Fahad Yaasiin uu keenay saxaafadii madax banaaneed waxay tiri xaaraan ma yeelayno maba yeeli karnay dhaheen in codka la soo duubo oo wasaaradda warfaafinta aan u doonano kadib aan sii deeno wax aqli galay ma maxaa wasaaradda warfaafinta aan u shaqeynaa dhaheen hadda madaxweynihiina waa saas waa nin laga baqay inuu qadaf iska hadlo iska daldalmo oo la rabo in la xakameeyo alla ilaahay maxaa xasan sheekh maxamuud aad tabi doontaan maxaa xasan sheekh maxamuud loo darsan doonaa oo أحمد حسن واكو سلام وقاس كيك أحمد حسن هذا وقاس أحمد حسن وانين أضيئة أحمد حسين ورحم حسين واكو سلام وقاس هذا واحد أحمد حسين وأجد ده واحد عليك على ورا ما أحمد حسين والله صعطة ظلمي إيه دولة دان حكومة دان ما أنت الرسالة يرادو ظلم جديد اللي يرادو ظلمي عصب وقبيلة اللي قد المياه دو أجد ده واحد كسي الله كرمه قال مذ قوي قديس أحمد حسين هذا صعطة هذا كوتا قال مذ قديس مقدش عاصمته ولا قرية ولا قرية marka madaxweynihiina waa madaxweyne noocaas waa nin ku sufoobay cadaani waa ku salaam cadaani aan ku salaamaya ugaaska cadana waa nin oday ah lagu yaac waxaan idin leeyahay marka waxaan idin leeyahay si shargareey waxaan idin leeyahay galad cali maxamed wuxuu yiri baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo aydid cagaaran soo galay aydid waa ku salaamaya si shargareey waxaan idin leeyahay wariye aydid cagaaran oo ku salaam ugaas waxaan idin leeyahay marka waxaan idin leeyahay hadda niyow dawladdan waa dawlad la yiraahdo dulmi jadiid dulmiga cusub oo qabiilada lagu dulminayo oo la rabo dadka in lagu baabiyo oo la rabo in dadka lagu gumaado oo la rabo in dadka lagu laayo waxaan idin leeyahay reer Muqdisho aniga waxaan idinku ogahay hadda ari Muqdisho wax badan ma soo moogay 2 sano wax keenan soo moogay Muqdisho xaaladeeda waa la socdaa waan ogahay waa ku kala soonaa inuu farmaajo idin qabsan karin laakiin mid baan ka walwalsanahay maskaxiyan inuu idin qabsado ka foojignaada ka digtoonaada in maskaxiyan farmaajo idin qabsado waa ninka caay General Aidid waa ninka caay Cabdullaahi Ciise الله نحرسته وانك عاي آدم عبد الله عثمان وانك عاي عبد الرشيد علي شرماكه وانك ما انت aragteen gulihii wasiirada ay u soo magacaabay qaabka qabyaaladaysan caadifada ay ka muuqato dulmiga qabiilada uu ka muuqdo u soo magacaabay habeen dambe waxa idin soo gudbinayaa wareesiyo xasaasi ah wax garadka beelaha hawiye isaaq ay majeerteen qayb kala duwan oo ka hadli doona ninkan caadifada qabiilka ah ee ku jirta caasimada xagee loo raray hadii la rabo ogaaska cad waxa loo raray abudba halkee loo raray moora wax waa la qiimeeyaa daraasaad sameey maxaa keenay nin galow ka yimid in wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibushinta la siiyo oo wasiirka dastuurka la siiyo nin Puntland ka yimid see ku dhacday lagu qabsay maxaa keenay adigoo gaar jecel naag Brazil Canada iyo Mareykan ka timid in lagu qasbo hadda meeshan waa la qabsaday muduloodo tirada inta la eegyiin maxaa keenay in wasaaradda amni oo
wax ka baxsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka la siiyo maxaase keenayo waxyaal suuqnimada keenaysa maxay tahay in la yiraahdo wasaaraddii hadalka leediin hadalka waranka sida idin sheegay reeraha farmaajo u kala shaqadeeyay guriyihii 20 sano ay gateen hadda ku doodayaan oo halka malin 2 malin marayo markii hore 10,000 ay kala baxeen markii qashta ay dhacday badda ay dhacday kadib ee raan maanta inay dib u soo cusboonaysiiyaan garsoorkii laga haystaa wasaaradda waxa laga haystaa arrimaha gudaha oo fulinta la hela laga haystaa waxa laga haystaa tii dastuurka laga maxaa haystaa adiga arrimo dibadda oo qaleel nin gurwado Yusuf Garaad lagu siiyay maxaa haystaa waxa ma haysatid finish bata ever zero waad dhimateen waad liidatiin idinkaana saas isin yeelay idinka ayaa meeshaas waxa la yiri lax walba meesha is dhigto ayaa lagu gooracaa aan ku soo afmeeraya lax walba meesha is dhigto ayaa lagu gooracaa hadda waa la goorici rabaa ogaada hadda waa la gooracay idin dhima adaaniyo saas idin mili laakiin Axmed Cabduqaadir waa ku salaam ugaaskeyga Axmed Cabduqaadir waa noodaya hadda waa la gooracay idin mili laakiin waxa idin leeyahay halis midida idin saaran maanta wasiirada la soo magacaabay hadii ilaahay amarkiis ani ma dhaay baarlamaanka way soo celi doonaan maxaa yeelay baarlamaanka hakada doonaqaat caadaqaat farmaajo bas $30,000 ay ku soo doorteen ismalihi way soo celinayaan $30,000 laaluush ayuu farmaajo bixiyay laaluush ayaa lagu soo doortay farmaajaha arkaysaan laaluush ayuu bixiyay saas ayuu ku yimid beetel baladweyne waa ku salaam ugaas hadda waa ogahay ninka reer waxsan in adeerka la magacaabay kilinka shanaad soo jooga la magacaabay wasiir dawladda arrimaha dibadda marka waxa idin leeyahay gooricitaanka qarka u saarantihiin arinta laga dhidhiyo ilaahay ka baryo ilaahay waxaad ka barisaan in baarlamaanka Soomaaliya uu soo celiyo golaha wasiirada oo aan la ansixin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryay caawa in baarlamaanka uu soo celiyo golahaas wasiirada ah ee dulmi jadiid leeyahay dulmiga cusub leeyahay beeraha Soomaaliya lagu dulminayo ilaahay waxaan ka baryay qofur raxiimka ah in uu soo celiyo in farmaajo ceebtiisa iyo magriga iyo qiyaanada ku jirta iyo ibaada la'aanta iyo nacasnimada iyo doqonnimada ku jirta farmaajo ilaahay inuu umada tuso qulubtooda farmaajo wax uu yahay malaha waa zero meel uu ku fiican yahay malaha hadda waxa daacad ka ah shaarbaha intaas la eg intaas daacad ka ah farmaajo wax kale uu haya ma jirto waa wadani waa daacad waa maxaa daacad uu yahay waa ninka intaas shabiis la eg Riyaa Axmed sheega Riyaada reer dalalow waa naga badbadiseen naga dhaafa buuqa waxa idin leeyahay ilaahay waxaan ka bari hadda mid u saaray had u jeeda bal fiiri wuxuu soo saartay odigan shaarbiis inta la eegyahay meesha noo soo saaranaysa anaga intaas la eegyahay ariya farmaajo geeya qof soo qoray ariya farmaajo geeya waxa ka horeysay gabar farxil ila soo qortay waxa ka horeeyay idin sheegay caawa si fiican ii dhageysta ariya farmaajo geeya waxa ka horeysay ma taqaani waxa ka horeeyay waxa ka horeysay ariya maxamed siyaad geeya markii bacallihi miya dahablihi la dhisay kuwa badan oo midkan dhahay ariya farmaajo geeya abiis ku jira liir abiis jamaad jesto luza waa ku salaamay hada xukuumadda noo kanteen waa arkay jamaade ariya farmaajo geeya wallahi baan idin sheegan midkan hadda ariya farmaajo geeya la jawhar waa wax la soo sameeyay waay sheeko la isla ogaa oo la soo dhisay adiga xisaabtan nin baa wuxuu yiri ariya farmaajo geeya jawhar habeenkii farmaajo la doortay waa wax ala yar uu soo sameeyay si fiican u faan Soomaalidu waa cawaanay moogta markay burhaasantahay waa eber ariya farmaajo geeya subaxii dambe ariya farmaajo geeya waa la soo waday hotelki waxa la geeyay madaxweynaha uu joogay war hadda ninka macal shabaab war ninkan macal qaacida war ninkan madaacisha war ninkan muxuu yahay war ninkan madilaaya kamera laga arkay madaxweynaha loo geeyay see ku qaadanay adi see ku qaadatay ani maana maangaab ilaahay aqli ugu filan uu isiiyay inkastoo cilmi badan aan lahayn laakiin aqli fiican oo wax aan ku kala fahmo uu ilaahay isiiyay alxamdulillah shukrullahi rabbil alamin ilaahay aan u qabaa cilmi naafica oo aakhiri adduunyo anfaco inuu ilaahay isiiyo انت سيدي شيء سوماليه لكن نبا وحيري فرماجي جي يا فرماجي جي والله سوى فرماجي لوجي ورنكم على شباب ورنكم محويه ورنكم على القاعده ورنكم محويه ما تقان هذه والله سوى فرماجي لوجي برنامجك ان روايات اي تاي لو سو سمي هذا جماعه او كل روايات سميسو واي نوع سو كل روايات واي جماعه روايات سميسا هذا waa روايات انت laga soo jiray ninka wala soo wada jawhar hada xamar ala kee nin nuurdin ala leeyahay waa markaas nuurdin sheekada maxay taande markaas uu yiri aniga ma fahmin sheekadan waxaan fahmin ma hadda fiiri madaxweynaha waxa loo geeyay hotel jazeera marka waxa la yiri sheekadan waxa ka horeysay sheeko kale sheeka idii waday waxa ka horeysay sheeko kale oo ah
markii bacalaha iyo dahablaha la dhisay maxamed siyaad bara bacalaha iyo dahablaha midkood uu dhisay midkan aabihiis mida ku jira leeyay midkan iigeey ariya farmaajo iigeey aabihiisa kamid ah leeyay dadkii markaas waxay yiraahdeen leeyay ayagoo badan soo bixin ariya maxamed siyaad iigeey ariya maxamed siyaad iigeey ariya maxamed siyaad iigeey ariya farmaajo iigeey waxa ka horeysay ariya maxamed siyaad iigeey ariya maxamed siyaad iigeey intuu ku dambeeyay maxamed siyaad hada meesha ku dambeeyay waa la ogaa saaxib farmaajona meeshaas uu ku dambeyn doonaa kunax ama ku farax nacaybka qabiilada iyo dulmiga uu wadana ilaahay idinkiis aan idinkan ahayn wuu ku fashilmi doonaa wuuna ceeboobi doonaa waana qabyaaladiista madaxweyneen xaqan u leeyahay inaan dhoo madaxweyneen waa qabyaaladiista asaan ka arkay inuu qabyaaladiista yahay waxaan arkay qaabku u soo xulay golaha wasiirada waxaan arkay inuu dulmiyay qabiilada qaarkood madaxweynaha idinkan qeyra idin rajeynaya maxamed aadan ku salaamaya محمد بوطالي أهلا كو سلامي قد إساقنا ولا الدلمي محمد أهلا إذي سلامي دمانت إلهي إذي حفظه إلهي إذي بركة إلهي إذي شرفه إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يوحج عيش إنه يدي سهله أموره هنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلة إله دمانت بين حفظه ونبركي إله ربي الرحمن وضدك ما أنت كلها وحمي قرحي كلا عي تياترك إله وعافمات سي إله كو انتين وحكريك الشهادة وقدم بداف أو جنة فردوس إله وكورابي إله فرماجي انتو جوغي ضد ضانا مقدش اللي قد له دلكي يقرأ إيدي ويسيو كردينه إله ربي الرحمن انت لمتي إله ونحريسه انت النولنا إله وحن كابري إله ربي الرحمن وحفظي ضدك مقدش جوغ علاس بدنا عايست إله علاس كدلقات إله ربي الرحمن وحن كوديست لما انت بأمورها الله إنها أمورها الله إنها أمورها سهلة إله ربي الرحمن أمورها الله إنها يا الله إله نو سهل إله أمورها ذا سهلة إله أمورها نوسان إله رب الرحمن وقبلها صومالية أولاد الدنيا إله أولاد سي إله وليس صومالية أولاد الدنيا إله أولاد سي إله أنت إسربتنا اسكو كانوا اسكو دروا إله رب الرحمن اسكو جوري إله رب الرحمن دم بيجان إكي ولد كان يا الله إله عفي إله كوا قبيلات كوجرت الضعف جاه وفرماجة قبيلات كنت أجري يعني إله قلبي جود قبيلات كسار مريحان ماذا كسار إله رب الرحمن صومالية وضد الصح يهجان في عنو مدرسا أو إلهي درتيس ومد الصومالية وجا أذيجا إله الصومالي سي إله رب الرحمن هجان أي كهوفنتهاي قبيلة أو أي كهوفنتهاي ننجعلاسيجا أو أي كهوفنتهاي قبيل جعلاسيجا إله صومالي سي الله سي كري إله هذا أمورها سهلة إله أمورها سهل إله دمانتين هذا كلامك ودي سنة إله مالين والباد دنبيه قلنا والضوء هذا جفان نهاي إله الدنبيه عن قلنا يا الله إله نجعفي إله نجعفي إله نجعفي إله مالين والباد دنبيه قلنا إله دنبيه نجعفي إله ربي الرحمن وحنك ودي استعني جنا وحي عن قلدي وحي أهاتي نفس الدير الشيطان وحي عصيبينه إلهي حقي سي أهاتي فضلا سيشر قرية وحيدي لجنا خير لمانتين بإلهي عين حفظيه إلهي سبحانه وتعالى إلهي عين حفظيه لمانتين بفضلا سيشر قرية إن الله وإنوها بين دنبي ورئيسي حسب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبك المحمود عرب وإذن الله سيدا سيو نبت قليو باي باي برتا فيسبوك عن كل يعينه ومحمود محمد ظاهر نبدي